inta ana bilaabay muuqaalka YouTube ka subscribe dheh muuqaalkan like saar oo kuma adsanta filimku wuxuu ku bilaabanayaa haweeney ayaa waxay ka soo baxaysaa shaawarka kadib waxay soo taagay nin burcad ah oo lagu magacaabo Victor ninkii burcad ahaa waxa uu gacantiisa ku qabanayaa haweeneyda ilaa ay ka sooxdo kadibna dhala ayuu wajiga u garaacayaa ilaa ay ka dhimatay waxaan ogaanaynaa 3 sano ka hor in burcad oo lagu magacaabo Victor waxa xabsiga dhigay Baron Mason laakiin qofna ma filayn in markii Victor xabsiga uu ka soo baxo oo dili doono xaaska Baron Mason si argos ah geerida xaaskiisa kadib riyadii ahayd inuu burcada magaalada ka nadiifiyo Mason way sii xoogaysatay hadda waxa kaliya uu doonayaa argosi habeenada kamid ah Baron Mason waxa uu qaatay hubkiisa asiga oo hore u kaxeeyay mid burcadi kamid ah waxa uu wacay saaxiibadiisii booliska waxa uu u sheegay in uu joogo goobtaas waxa uu u sheegay sababta uu joogo goobtaas in uu dilgeysa rabo markii saaxiibadiisii booliska ay imaadeen waxa uu toogtay ninkii saaxiibadiisii booliska ayaa weydiiyay sababta uu sidan u yeelay Mason wax jawaab ah ma bixin waxa uu si fudud ugu tuuray hubkiisii jilbaha ayuu dhulka dhigtay Mason xabsi ayaa lagu xukumay iyadoo lagu helay dil ula kac ah waana wixii uu doonayay Mason sababtoo ah ninkii xaaskiisii dilay ee Victor hadda wuxuu ku jiraa isla xabsiga markii uu Mason yimid xabsiga waxa la geeyay xafiiska taliyaha xabsiga taliyaha ayaana uga digay inuu wax rabshado ah ka sameeyo xabsiga isagoona u sheegay dhammaan in wax xabsiga ku jira ay dilayaan yihiin maadaama Mason uu ahaa jiray boolis waxa uu cadawgooda noqday dhammaan maxaabiista sidaa darteed taliyuhu wuxuu weydiistay Mason haddii uu la shaqay karo si loo ilaaliyo nidaamka xabsiga taliyuhu wuxuu shaqo fudud u diray Mason oo ah dhaqdhaqista laakiin Mason ma danaynin shaqadaas dhanka kale Victor waxa uu ogaaday in Mason xabsiga la keenay inkastoo uu hore u soo dilay saaxiibkii haddana Victor kama walwalsanayn waxaas maalintii xigtay Mason asiga oo shaqaynaya waxa soo weeraray qayb kamid ah maxaabiista halkaas dagaal ayaana ka dhacay inkastoo Mason uu ahaa qof xirfad dagaal leh haddana waa la garaacay waxaana soo kala orday askar ayagoo halkaas ka badbaadiyay Mason in la dilo maalmo kadib Mason waxa uu la sheekaystay askari kamid ah askarta waardiyaysa maxaabiista waxa uu ogaaday in Victor uu xabsiga ku jiro muddo sanad ah haddana uu xiriir la leeyahay tuugada banaanka iyo mid gudaha balse Mason waxa soo dhan uma jixin inkastoo naftiisa wali ay qatar ku jirto haddana wuxuu u taagnaa in uu argosto habeen wuxuu sariirtiisa hoostiisa ka bixiyay qalin asigoo ka dhigay afkiisa mudac markaas wuxuu aaday musqusha asigoo rabo inuu ku weeraro mid kamid ah maxaabiista oo hore u soo weeraray inkastoo maxbuuska uu dhaawac culus gaaray haddana wuu dagaalamay maxbuuskii dhigbax awgeed ayuu daciif la noqday waxa uu ku dhacay dhulka Mason ma joojin argosiga waxa uu bartilmaameedsaday maxbuus kale oo ninkaas kuma mashquulsanaa nadiifinta waxa si qarsoodi ah u weeraray Mason sidaas ayuuna u garaacay ninkii uu dhintay ugu dambeyn Victor waxa uu ogaaday in ragiisii mid loo leynayo waxa uu dagaalka u soo diray saaxiibadiisii ugu dagaalka badnaa si ay Mason u weeraraan laakiin Mason dagaal ayuuna kala hortagay uuna garaacay Mason waxa si lama filaan ah u garaacay askari waxaana lagu xukumay ciqaab gooni ah waxaana mar kale loo yeeray taliyihii xabsiga isagoo kalkan Mason u soo bandhigay markaas ayuu Mason ogaaday awoodda uu leeyahay Victor in ay ka timid taliyaha xabsiga iyo heshiis ay galeen ama Mason oo hore boolis u ahaa jiray uu diiday heshiiska uuna ka dhaqaaqay taliyaha ayaana ka xanaaqay wuxuuna ku xukumay ciqaab xabsi markii uu Mason ka soo baxay xabsiga waxa uu aaday qolka dhaqdhaqista asigoo aan qofna la hadlin waxa uu helay bir yar oo ka go'day dhoomaha wuu qarsaday isagoo ka dhigay birtaas mid gacanta la gashan karo Mason waxa uu sii waday xasuuqii saaxiibadii Victor markii uu Victor ogaaday in wadi saaxiibadii la ugaarsanayo ma sii adkaysan karin waxa uu si toos ah u soo aaday Mason isagoo wato midi Mason waxa uu dareemay halista waxa uu feer ku dhuftay askari u dhawaa sidaasna ayaana xabsiga lagu dhigay waxa uu ka badbaaday weerarkii Victor Mason waxa uu go'aansaday in uu laayo dhammaan saaxiibada Victor kadibna asiga uu raaciyo dagaal ayaana mar kale bilowday iyadoo saaxiibada Victor ay weerar ku qaadeen Mason saaxiibada Victor waxa ay adeegsanayeen midi Mason waxa uu adeegsaday xarig isagoo ku xiray mid kamid ah waxa uu ka tuuray saqafka sare isagoo ku kor dhacay askari markii askarigii ay naftu ka dhacday waxa ay qaateen qorigiisii maxaabiistii ayagoo bilaabay in ay ku dagaalamaan maxaabiistu waxa ay dagaal la galeen askarta waxa aana buuq ka bilowday xabsiga dhan Victor waxa uu qori ka qaatay mid kamid ah saaxiibadii isagoo rasaas ku furay Mason laakiin waxay ku dhacaysay saaxiibadii oo kala orday markii uu Mason u soo dhawaaday waxa bilowday dagaal gacan ka hadal ah Mason waxa lagu dhuftay teesto aad u xoog badan waxa uu ku dhacay dhulka Victor waa mid aad u xoog badan Mason inkastoo uu ahaa nin boolis ah laakiin halka feero Victor ayaa ah mid aan la xakameyn karin ilaa markii dambe Mason uu helay fursad waxa uu ku dhuftay dhuunta Victor ayaana dhulka ku dhacay markii uu Mason isku dayay in uu argoosto taliyaha xabsiga ayaa garabka xabad uga dhuftay waxa uu baskooladii u dhiibay Victor si uu u dhameystiro Mason waxa uu sheegay Victor in taliyuhu uu xabsiga uu sheegay xogtiisa Victor asigoo xanaaqsanayo wuxuu laad ku dhuftay taliyihii sidaas ayaana taliyaha lugta uga jabiyay mar kale dagaalka ayaana sii socday Mason waa laga awood badan yahay oo waxa lagu dhuftay dhulka
laakiin Victor inta soo kor istaagay ayuu ku jeesjeesay halkii uu ka dili lahaa. Mason waxa uu ka faa'iideystay fursadaas waxa uuna la soo baxay midi u qarsaneed isaga oo ku dhuftay dhuunta. Sidaas waxa uuna ku xaqiijiyay argoosigiisii. Fadlan nagu soo biir YouTube-keena oo subscribe leh muuqaalkana like saar waa ku maasantaa.